السلام عليكم أصحابتكم حنا جنال كسو دوادا ومر كله iyo muuqaal kale walaakiin xasan cadle wallahi aad iyo aad u mahadsantihiin waxaa sidoo kale intood farxad weyn ii ah cashirada aan halkan kusoo gudbiyo in ay noqdeen kuwo bedela nolosha shakhsiyaad aad iyo aad u fara badan kuwaasoo diiradda saarayay barnaamijyaadka aan halkan kusoo gudbiyo mar walbana isticmaalayay wadiiqada aniga aan sheego aad iyo aad u mahadsantihiin haddii aan miraheeda idinla wadaagane waa kan arday ka mid ah ardadeyda oo keliya wuxuu daawada bis kooriskayga ma uusan helin sidoo kaleentood sharaxaad gooniyo kale ma sii siinin keliya un waxaan sii siiyey waxyaabo kale oo iska waana ah oo iidana aad iyo aad muhiim waa bisaan siiyey wax kale aan siiyey male laakiin wuxuu si toosa ugu xirnaa mar walba uu daawo jiray cashirada halkan aan soo geliyo cashirada halkan aan soo geliyeyna waxaa ogaataan in lacaga fara badan looga qaato ardada qaar maasha allah ardaygan waa kanaa risaltigiisa bal aynu isla daawano aqoon dhigayo macalin intii u mudnayd adaa maraye maasha allah wuxuu ila soo wadaagay muuqaalkaas wallahi waana tan hadda igu dhiirigelisay inaan haddana idinsoo sameeyo muuqaal kaloo cajiiba haddaba haddii aadan ka mid ahayn ardada waxaad kusoo biri kartaa telegram linkiga hoos idin yaallo sidoo kale intood waxaan daily muuqaalo usoo dhigaa barteyda tiktoka oo ay ku qoran tahay caadle 7 waxaan soo dhigaa mar walba tradeska aan qaato ayaan soo dhigaa marka halkaasna ka warhay okay aan isku soo laabana marka suuqa maalmahan holiday ayuu ku jiraan bangiyada iska ilaali laakiin IQ optionka badanaa waa la trade gareeyaa lacagta aan trade gareyn doono waxay noqon doontaa euro USD halkan horizontal lineka madowga ah uu noo saaran yahay waxaan ku qoray waa liquidity is resting here it means lacag baa halkan ku nasanaysa lacagta halkan ku nasanaysa sidee baan uga faa'iideysanaynaa marka halkan waxaa ka dhacay breakout sidaa ujeedana candlekan waxa uu leeyahay rejection suuqna wuxuu soo jabsaday meel liquidity ahayd okay breakoutkan kadib maxaa dhacayo mar walbo waxaa dhacaya breakoutkan kadib waxyaabihii anaga aan lacagta aan ka sameynaynay ayaa halkan ka dhacaysa okay hadda jatigan waa 5 minute chat waaye 5 minute jatiga directionka suuqa aan usoo diri doono wuxuu noqon doonaa dhanka iyo down trend ma jirto reason aan up trend ugu qaadan karno halkan marba haddii aad aragtid liquidity waa inaad ka faa'iidaysataa bull bagga imaan doona order bloggan teeda kale waxaa maanta idin sheegi doonaa in kooriskeeni uu dib u bilaawo doono insha allah cid allaale ciddii rabta kooriskeyga insha allah January upcoming soon waaye sidoo kale intood insha allah isdiiwaangelintana waxay bilaaban doontaa sanadka cusub haddii uu ilaahay ka raali noqdo 1 by 1 ayaan u qaadan doonaa ardada intaa kadib aynu imaano 1 minute marka 1 minute markii aan imaanay halkan waa halkii uu liquidity uu ku nasanayay sidoo kale intood meeshaanne aad u jeedaan order bloggan sorry liquiditygan waa lasoo jabsaday liquidityga maadaama lasoo jabsaday meeqa candle baa soo jabsatay aan eegno candlekan greenka wuu soo jabsaday candlekan redka wuu soo jabsaday candlekan kaleentood sidoo kaleentood dhammaantood way soo jabsadeen how many candle soo jabsata marka 1 2 3 4 5 6 7 todoba minute ayaan sugayay 7 minutes ayaan sugayay inaan tradekan helo ama this golden opportunity waxaan sugayay 7 daqiiqo ayaan u fadhiyay halkan okay maadaama suuqu uu liquidity soo jabsaday candlekan red candleka ah green candleka soo jabsaday ku xiga waa sugay waxaas ay soo confirmation fiican ma uusan ii ahayn haddana waxaan sugay green candle imaaday strong red candle imaaday wabacdeen waxaan sugay inta laga soo buuxinayo marka liquidityga ama 50%ga candlekan wabacdeen waxaa usoo qaatay dhanka iyo down trend ayaan usoo qaatay bafo strategy ayaan waxaa usoo qaatay dhanka iyo down trend mar walbo oo aad liquidity aragtid waa inaad sugtaa breakout-ka maxaa sugi kartaa aan ku dhahay at least 3 candle walaaluu sug 3 candle markaa sugtid candleka afaraad
u soo qaado sel hadda fiiri 1 2 3 saddexdan candle markii ay meesha soo jabsadeen candlekan redka haddii aad isla markii uu furmayo aad soo qaadan lahayd waxay ku noqon lahayd 1 2 3 4 4 minutes jaa waa haysataaba soo maahan soo marka waxaa idiin rajeynaa horumar iyo baraare janaalkani subscribe saara muuqaalkana laagareeya damo aad subscribe saartaan damo aad share gareysaan waa damo ani muuqaalo fiican oo weliba wax aad ka faa'iidaan aan soo geliyo insha allah waxaa idiin rajeynaa horumar iyo baraare khayr badan sidoo kale intood haddii aadan kamid ahayn ardada tiktokgayga ku xiran tiktokga soo follow gareey insha allah khayr badan